Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Kusoo dhawaada barashada muuqaal samaynta. Waa cashirkeenii 12. Maanta waxaan qaadan doonaa haddii uu ilaahay yiraahdo sidee loo sameeyaa customer size. Tusaale ahaan haddii aan soo qaadano Instagram-ka oo kale, historigiisa waa 10 ilaa 80 oo lagu dhuftay 19 ilaa 20 oo pixel waaye. koley pixelka markaa meesha tagna arkeena. gif tv-giisana asigana waxa waaye 10 ilaa 80 ilaa waa isku mid. sidoo kale markii la dhigayo posti caadi aad dhigaysid waa 10 iyo 80 iyo 10 iyo 80 waa 1080 iyo 1080. marka postiga dhirirkiisa iyo baliciisa way isla faac yihiin. Historiga laakiin dhirirkiisa iyo baliciisa islama faac way kala weyn yihiin. oo waxaa dheer baliciisa ayaa dheer ah 1920 waaye kanne 1080 waaye. ma fahamteen? marka size-kan sidee loo sameeyaa Instagram post video inaan dhigaa rabaa sidee u sameynaya. sidoo kale Facebook directed asigana cabirad ayuu leeyahay. cabiradiisa kale waa kuwana. coverka markii aad sameynaysid cabirkaas ayaa ku sameynaysa oo pixel. historiga markaad sameynaysid waa isku mid asiga Instagram-ka. postigiisa waa 940 iyo 788. image link imageska markaad sameynaysid waa muhiim marka intaan hadii inaad si fiican u fiirisaan profile picture-ka iyo waxa isla mid ah Instagram-ka postigiisa waa isla mid. oo macnaha dhirirkiisa iyo baliciisa waa isku mid. markii aad sameynaysid square aad sameynaysaa. waa fahanay soo ma? hadda waxaan soo dhiganay videoga waxaan kasoo qaadanay TikTok. videoga waa muuqaal caadi ah oo muxaadaro ah. muuqaalkan haddii aan kusoo bilaabo wuxuu sameynaa waa ujeedaa cabirka wuxuu isku fadhiisiyey oo ahaa historiga ama statuska saa u taqaanid. marka haddii aan inta tago oo setting project aan tago inta maxaa ku qoran way kala dheerayaan ujeedaa. haddii aan kan ka furo kana kala furaysaa waa bedeli kartaa. laakiin hadda cabirka saxda oo haysto waxa waaye history waa dhiga kartaa statuska asiga oo waxba aan iska bedelin ayuu wada saarmaya. ma fahanteen? hadda cabirkii kaasa igu soo hormaray kana soo geliyay. muuqaalkayga wuxuu noqonaa muuqaal yari soo kooban. ujeedaa muuqaalkii dhexda ku istaagay historiga ayaa ka weyn. sidee marka muuqaalka sidiisii caadiga aan ugu celi karaa? okay, customer size aan tagaa, setting aan tagaa. meeshaan customer size ay ku qorantahay waa furaa. qaybtan haddii aan ku dhufto qaybtan waa sidii hadaytii aan soo sheegnay 1080 iyo 1900 1920 wuxuu noqonaa sidii caadiga oo fixedka lagu ogaawaa muuqaalada. marka YouTube-ka inaad gelisa u baahan tahay fixedkaas ayaa lagu geliyaa. waa fahanaa maleynaa. hadda kan si ugu fadhiisana fiiri dhinac dhibcayahan waa laga jiidaa. falaartaasaan hadda waxa waaye 4 gees waaye. afartaas waxay sheegaysaa movement inaad ku sameynaysid. qaybtan haddii aan tago waxay sameynaysaa falaarta inaad intan u jiidi kartid intana u jiidi kartid. kan hoosa u jiidi kartaa. marka sida uu fixed ugu yahay hadda barnaamijka muuqaalkan YouTube-ka ayaan kasoo saaray waa arkaysaa waa 1080 1920 oo toos uu ku fadhiyaa. qaybta TikTok haddaa u laabto waa ujeedaa muuqaalka TikTok meeshiisu taagan yahay. intaana way ku darsantay. marka muhiimadda waxay tahay inaad baratid qaabkee markii aad TikTok aad sameynaysid. haddii aad sameynaysid statuska inaad wax dhigtid haddii aad u baahan tahay. Instagram-ka muuqaal inaad dhigtid u baahan tahay. cabiradooda waa inaad fahantaa. cabirada intee laga saxaa file aan tagaa project setting aan tagaa inta ayaan ka sixi karaa. qaar way ku diyaarsan yihiin iPhone taleefanada iyo noocyada usii kala baxaan. adiga shakhsi ahaantaad inaad samaysid u baahan tahay customer-kaas aad tagaysaa. customer-kan inta haddii ay cagaar uu saaran yahay labada way isla shaqeynayaan. haddii hal xaba aa bedelo ka kalena way bedelmaa. laakiin haddii ay cagaarka uusan saarnayn macnaha hal ka mid ah
yaa bedeli kartaa keligiisa. Tusaale muuqaalkan hadda waxaan ka dhigaynaa status meeqo ah 1080 ayuu dhirirka ahaa soo maahayn 1080 intana meeqo ahaa 1920 inta la leena waa ujeedaa suu ugu fadhiisanaya fiiri marka kor aynu dhinacyadaan u jiidaa uu ku fadhiyaa. waxaan rabaa muuqaalkan asigoo saan u hadlaayo inaan dhigo Instagram post haddii aan rabo project yaan tagaa customka waan joogaa intaa waxaan ka dhigaa 1080 intana 1080 la ku celinaya ilaa cabirka iyo dhirirka waa isla fac apply aan dhahaa waa ujeedaa Instagram tik caadi waaye. sidoo kale qeybahan hoose soo deji waxaan rabaa inaan sawirkan oo Instagramkan ugu talagalay inaan soo saaro frame waaye macnaha framekan wuu ku fadhiisanaa asigana waan hubaa leanna anaa soo diyaariyey waa ujeedaa. okay ba marka waa aragtaa qaabkaas ayaa Instagramka loo soo geliyaa haddii aad u baahato inaad Instagramka geliso ama customer size-ka aad bedeshid hadhow markii aad save gareynaysid wax kugu soo horeeyo oo default ahaan u qaadana. marka dayta kan aan soo hormarinayna wuxuu qaatay kan haddii aan kan ku soo hormarin lahayn cabirkan ayuu qaadan lahaa. marka cabirkaasna waa inaad fiirisaa mid kugu soo hormarayo haddii ay inaad bedeshid u baahan tahayna inta ayaa ka bedeli kartaa. customerkan qaybta ugu koreyso way diyaarsan tahay oo HDY muuqaalkana toos u qaadana. haddii aan muuqaal intaas aadan ku qanacsanayn oo cabirkana aad taqaanid customer size-kana ka bedelanaysaa. marka intaas in aad loo fahmay ayay ila tahay. intaas ayaa kusoo gabagabeyn doonaa hadduu Ilaahay yiraahdo. cashir kale ayaa ku xigi doona oo ah dad badan ayaa waxay soo weydiiyeen sidee course-ka looga baaraa iyo software-ka haddii aan u baahdo inaan mobile ku soo dejiyo sidee computer-ka aan ugu shubtaa. cashirkaas dib ayaan ka dhigan doonaa. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.